qodobka saddexaad aan rabo inaan ku weydiiyo waxa weeye waxaynu ognahay shirkii Khaatuma 3 in qabanqaabadiisa hadda gabagaba tahay oo muddada fooda ay nagu soo hayaan furmi doono insha Allah hadii la ka dhigo guddigii fulinta ee G11 ee haabudigayaashii shirarkii Khaatuma 1 iyo 2 iyo 3 oo aan weli cidi ka soo caga dhigan taleex muddadiina dhowdahay maxaad fikrad naga biirinaysaa oo aad ka hayso waxa runtii wararkooda tooska oo qofka anigu lama socdo laakiin de waxa la yiri in lagu seexdo waa seexan G11 hawl badan baa u taala ama G10 aan iraado Allah naxariisto Maxamed Buraale runtii nin saciima oo Khaatumo wax go'day ayuu ahaa ilaahay saxan naxariisto jannadii raxmiyo roodaha ka waraabiyo marka tobanka kale ee golaha fulinta de waa nin lagu seexdo saxan sida aan iri waxa weeyaan waana roob modelkii deegaanada Khaatumo iyo reer Khaatumo meel kasta joogaan dadaal dheeraad ah iyo horumar inay ka hormaraan wufuudda kale oo dhan way tahay nin kastaba waa loogiyo hawl iyo nolol iyo deegaar uu leeyahay laakiin family inta ka balaaran bay hadda xukumaan oo ah yanoodan waa xukumaanade ay taliyayaashooda ka mid yihiin marka de carabta waxay tiraahdaa alqaayib laha xujatu iminka hawl Khaatuma leedahay ku maqnaana ma garanayo mana hubo laakiin waxaan oran lahaa haddaydan kulligiin mar ma wada tegi kartaane qaar idin ka midi dadku idinku idin eeganayaa si degdega ilaahay idin fududeeye ku taga taleex shirkana ku fura kuna maamula qaar dib u dhici karaa siyaabo badan way jirtaa diyaarado dhul dheer oo laga imanayo hawlo Khaatuma leedahay oo farahaba kula jiraan laakiin waxay la tahay inay iyagu dadka ugu horeeyaan dadka sii dhaxgalaan haddii waxyaabo yaryar oo xaalado yaryar jiraan sii damiyaan hufnaantii ay Khaatuma ku sameeyeen iyo raganimadii ilaahay siiyey inay maaragtay haddana tanna ku fulinayaan waa ku hanweyna inay ku fuleysana waa ku hanweyna ninba laba nin oo walaala ah nin wiil lahaa wiilkii markuu u koray buu labadoodaba u dhaamin jiray kii aan waxba dhalin baa maalintii dambe inan yar dhalay inankii markuu laba jiraha ayaa walaalkiisii inanka weyn dhalay yidhi war wiilkan yarad kolkolinaysa iska ilow inankayga inagu filane kaalayo inankaygana yarkan iska ilow waxa wuxuu yidhi war walaal anigu kaa laba jirka abaan dhalay adigu kaagaa xooga weyn hayso oo anigu kaygaa laba jirka baan ku mintidaya marka Khaatuma waa laba jir G10 iyo golaha madaxtooyada iyo golaha isimada iyo caaqilo iyo culimo iyo gabdho iyo dhalinyaro qof waliba wuxuu leeyahay xil gaar ah anigaygan ku dhaho meel baa ii banaan hadda hadlaya marka waxaan leeyahay G11 oo idinku waaba kasii xaq jirtaan marka hawlaha daahaysan Allah idin soo fududeeyo Allah idin soo ururiyo laakiin please dadka ka soo hormara maanta idinka leedin baahan inaad timaadaan si dhaqso ah inay imanaysan waa huba laakiin dhaqsahan ka hadlaya intaasan ka oran lahaa taana qodobka ugu dambeeya oo aan doonayo inaan ku weydiinayo waxa weeye adigoo ka faa'iideysanaya wareysigan caawa maxaad kula talin lahayd ama aad ku bogaadin lahayd jaaliyada Khaatuma State ee qurba joogta ah iyo deegaanka jaaliyada Khaatuma qurba joogta ah ee adduunweynaha ku kala nool qaaradaha adduunka
waxaan leeyahay tacabkii aynu tacabnay midhihiisii kuwii ugu horreeyay baynu guranaynaa waxaa qof walba ugu filan maanta labadii eerbood ee inagoon soo dawirsan inagoon cidna soo baryin inagoon hay-ada keensan muruqeena ku dhisanay iyo maskaxdeena waynagaa midhaheedii guranayna oo aynay raggeenii iyo madaxdeenii intay nabadgelyo uga degeen buuhoodle nabadgelyona taleex uga degeen kuwo badan oo kalena way soo socdaan insha allah biidnillaahi kariim oo diyaarada ah sidaan ilaahay ka baryayno inay iyagoo nabad qaba waxay intaa inoogu filan waxqabadka iyo horumarka inaynu wax walba qabsan karno inaynu ku aragno marka qolada dibadda waxaan leeyahay doolarka aynu koofi ku cabayno dhulkeenii waxbuu ka dhisayaa aynu muruqeena iyo maskaxdeena sida aynu amnigeena keligeen baa isku tashana muruqeena iyo maskaxdeena iyo shilinka ama doolarka aynu helayno aynu meel marino horumarka dalkeena inagu inagu xidhay ninna yaynaan ka sugin labadaa eerbood ee yaryar maanta intay soomaali inta ina nacabi ka qaylisay waa arkaysiin marka innagana inta inaga anfacday waa arkaysiin marka innagaa laynaga sugayaa inta shirka iman karta ee heli karta inay tagtayna shirka aan tagno dadkeena aan isu geyno muruqeena iyo maskaxdeena aan midayno aan lacagta hurro sidaasaynu ku gaadhaynaa horumarka inta kale inta inoo dhiman eerboodada xaaladaadka ka dhiman diyaaradihii riboodhaday ku qoreen waa la arkay waa meelo fiican aada u fiican laakiin waa wada ognahay waxyaaba badan oo ka dhandhiman inay jiraan insha allah aynu deg deg u dhamaystiro qolada dibadda intaasaan leeyahay gabdha ahaana guutada koowaad waxaan leeyahay ilaahay idin gargaaro ubadkeena iyo ubadkay sii dhalaan wixii ay u aayi lahaayeen baynu dhisaynaaye qolada gudaha waxaan leeyahay war dalkii idinkaa jooga dadka wax dhaqaajin kara ee isku duubnida laga rabo ee is urursanaanta laga rabo waa idinka waynu aragnay dhul aadan lahayn iyo reero aadan lahayn inta aada la joogi karto sharaf kuma dhex joogi karo nabadgelyo kuma dhex joogi qof waliba waad ka shakiyaysaa waxaan idinka codsanayaa dhulka aynu leenahay aynu aaminayo ina nabsiine yaynaan meel cidla ah kusoo dhicine ciideena quruxda badan iyo dhulkeena wanaagsan aynu aamino ilaahayna isku xidhno qoladiina guduhu ka kaca fadhiga wax qabta annaga raqba joogta lacaga soo dirto waa diraynaa haddaanan qadaynayn laakiin idinkuna wax badan baa haysaane ka faa'iidaysta amniga ka faa'iidaysta israaca isku xidhnaada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku gabagabeynayaa arrin runtii muhiima oo ah aada iyo aada in mudnaan loo siiyo wiilasha meediyada ama journalistka ama aynu nidhaahna wariyayaasha ee reer khaatumo ee u taagan in ay ka haqabtiraan ummadda reer khaatumo war kastoo dibadeed iyo mid dalka gudihiisaba iskuna daya inay dadkooda isugu keenaan oo ku hanuuniyaan barta internetka marka horta runtii aada baad mahadnaq gaara u mudan tihiin hawl aan cidina wax idinku siin gidigeen fronteerkana waa ku wada jiraa idinkana waa hawl kasii badan baad qabataan runtii waa idinku mahadnaqaynaa waa idinku haddii xataa laydinku gefo ama laydin canaantana dulqaadkeeda lahaada waxaad tihiin madaxdii berito waxaad tihiin dadka khaatumo u samaysantay mustaqbalkooda inay wax ka bedesho maanta waxaan ku faraxsanahay in website-dada reer khaatumo qof kastoo soomaalihii ilaa uu iyaga furo uuna website kala furan idinkaana gaadhsiiyey ilaahay haydin cawado
abaalkeedana ha idin siiyo ama ha dhawaato ama ha dheeraato waad helaysaan waanigii markii hore lahaa qof walba kaalin baa u banaan runtii kaalintiinii si wacan baa u hogaamiseen magacyadiinaan kor ka wada aqaana laakiin qof weji uma aqaano laakiin dadku way isu tirsan yahay idinkana mahad gaaraan idin jeedinayaa dee waxaan u malaynayaa su-aalahaagina cabdiyo inay caawa intaa ku dhamaadeen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waxaa intaa noogu dhamaaday wareysigii aan la yeelanay doctoresa Kinsi Maxamed Mire Kinsi Sonqole oo kasoo jeeda gabdhaha Khaatume State halkani waa radio USB online oo alaaba kala socotaan barta internetka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Thank you.